وقعان الراي أساكو ذكافو وقعان الراي أجوران يرى أباب الكيو عنكيو وجدو ليرتهاي إفافالا وعندان بان أركا xaflad ballaaran oo lagu caleema saareeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka urur dhalinyaro oo ay yeelatay beesha boqortooyada ajuuraan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. xafladda waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan beeshaasi kuna matala baarlamaanka federaalka, wasiiru dowlaha shaqada iyo shaqaalaha iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday ururka dhalinyarada qaranka iyo kan gobolka Banaadir. sidoo kale ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ahaa odayaal dhaqameed, siyaasiyiin, haween iyo culumaa udiin ka soo jeeda boqortooyada ajuuraan. xildhibaan Mawlida Cabdi Waayeelo oo madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada u sheegay sida ay wax kasta kaga gudbi karaan. dulba ay soo yeelo aniga khaasatan mas'uuliyad gaar ah si saarano Jubbaland aniga saaxiibka Yuusuf iyo hawl baa noo taala oo xataa abaarihi dadkii meel loo mariyo lama hayo. nimankii ragaha waxa weeye haddii abaar la soo qaado oo qalab iyo alaab la soo qaado xagee la marinay xagee wax lagu geeyo ilaahay baa u maqan inaan u duceyno hadalka badin maayo waxa weeye wax kasta wax ku dhaafi karnaa isku duumni tolow hal isku duumnaado midnimada hal ilaaliyo adduunyada tacliin iyo cilmi lagu tanaadaa kuwa samada tagay waa aqoon waxay ku tooqaan tartan bay halka ku gaareen kuna tisqaadeen tagoogaha qofkii laabtay taxaruga u diida asaagiisa inuu tuugsada waa tullahba waxaan ka wada haddaynu cilmiga iyo aqoonta iska dhisno oo aabuhu ilmihiisa wax baro kii wax bari waa u yiraahdo waa tulow ilmi wax bari waaye waxaan misanahay bulsho wax baratay haddaan noqon inaan meel badan gaari karno. sidoo kale xildhibaanka kale ee beeshaasi ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa madasha ka sheegay waxa uu ka filayo hoggaanka dhalinyarada ee ay beeshu yeelatay. gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Qaadimo iyo gudoomiye Cabdirasaaq Cabdullaahi Cali labadii moo dhalinyaro oo karti badan aan ku tuumeyno hadduu ilaahay yiraahdo aan rajaynayno insha Allah inay dhalinyaradu ajuuraan ay dal iyo dibadba isku xiri doonaan noqon doonaan bridge-kii ugu gudbi lahaayeen boqortooyadan tafaraaruqii soo ragaadiyay ama dib u dhac weyn ku sameeyay. waxaan kula dardaarmaa marka inay guud ahaan dhalinyaradu ay mataqaana u dhagan nuglaadaan guud ahaan ay isku soo wada aruuriyaan sida ay haddaba caawa ay kaalintooda hordhaca uga qaateen. waxaan ku sii xoojinaa inay intaas ka sii wadaan. wasiiru dowlaha shaqada iyo shaqaalaha Cabdi Axmed Qaasim oo caleema saarka ururka dhalinyarada beesha ajuuraan ka hadlay ayaa waxa uu hambalyo u diray gudoonka. marka labaad waxaan leeyahay waxaan helnay furihii ayaan helnay kuma iloobin wasiir soo dhow iyo odaygeenii kale marka waxaan leeyahay furihii beesha hadda la helay run ahaantii waxaana loo baahan yahay midnimo guud. sidoo kale dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxa xiriirka dadweynaha iyo suuqgeynta ee Salaam Bank Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi oo ku magac dheer macalin Kobac oo dhalinyarada xusuusiyay waxa laga rabo marka la doonayo fulinta hadaf fog ee beeshu ay leedahay. ujeedada ay ahayd in la isku yimaado oo la farxo muusika la daaro la xasuusto caawahayna waa gaarteen arrintaas. laakiin haddii tahay arrinta dad wax ka maqan yihiin dad rabo inay wax horumariyaan dad rabo inay isbeddel ku sameeyaan beeshooda hadday tahay hadafka iyo ujeeddada way fog tahay. waxay u baahan tahay sabar, waxay u baahan tahay go'aan, waxay u baahan tahay ku talagal, waxay u baahan tahay qorshe joogto ah. uma baahnaa caadifad, uma baahnaa degdeg. waxay u baahan tahay kaasiyo, waxay u baahan tahay dulqaad, waxay u baahan tahay isku wadid. ugu dambeyntii waxaa khudbadda madasha xafladda caleemasaarka hoggaanka dhalinyarada beesha ajuuraan soo xiray gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa. waxaan ballan qaadayaa inaan si karti leh u gudan doono waajibaadkayga isla markaana ka shaqayn doono isku xirka dhalinyarada dhexdooda
isku xirka dhalinyarada iyo siyaasiyiinta, isku xirka dhalinyarada iyo qof waliba oo horumarka ka shaqeynaya, u raadinta dhalinyarada u baahan waxbarasho iyo shaqo. Anagoo kaashanayna xildhibaanadeena ee nagu matala dowladda federaalka Soomaaliya. Waa cusub ayaa inoo bariyay, waxaan rabnaa in aan la hor istaagin lana garab istaago si aan u gudano shaqada culus ee ina hortaalo. Nidaamkan cid kasta inuu soo dhaweeyay ayuu diyaar u yahay. Dadka oo dhan wax ma maamuli karaan, laakiin dadka oo dhan quruxda iyo nidaamku ay ka wada shaqayn karaan. Gacmahooda jir bay wax ku gooyaan. Aan isgarab istaagno walaalayaal. Waxaan la soo kulannay culaysyo fara badan, laakiin ugu dambeyntii waan ka soo talaabsanay annagoo la kaashanayna mar kasta hawshaan aan qabanayno Allah subxaanahu wa tacaala kama raadinayno dhaqaalo, balse horumar iyo wada tashi loo dhan yahay ayaan rabnaa inaan wada gaarno. Taasna garab istaagiina ayay ku imaanaysaa. dhowaan ayay ahayd markii lasoo gabagabeeyey doorashada hoggaanka ururka dhallinyarada beeshan, kaasoo ay ka qayb galeen inta badan dhallinyarada beesha, waxaana lagu qabtay codbixinta qaab online ah maadaama ay ka qayb galayeen dhallinyaro joogta meelo dalka ka baxsan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.